ciidamada xoogga dalka waxay habeen iyo maalin ay u taagan yihiin difaaca dalkooda hooyo waxayna sanad guurada 62 ee asaaska ciidanka u dabaaldegayaan iyagoo ku jira jiidda hore ee dagaalkaasi argagixisada al-shabaab ay uga xoreeyaan deegaanada farakutiriska ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. munaasabadani waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 43aad. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad gaashaanle sare Cadow Maxamed Sahal wuxuuna ku dheeraaday taariikhdii kala duwanaa uu soo maray ciidanka xoogga dalka isagoona hambalyo u diray sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ee ciidanka xoogga dalka iyo xaasaskooda. maanta oo taariikhda ay tahay 12 Abriil 2022 waa maalinta sanad guurada 16aad waa aasaaska xoogga dalka Soomaaliyeed maalintii la aasaasay way 62 sanado way ka soo wareegtay. waxaan u dabaaldegaynaa feestada qiimaha badan oo si gaar ah uu xoogga dalka Soomaaliyeed u leeyahay. waa taariikh aan la hilmaami karin oo dhalashadeena ah oo aan ku faano oo adduunka nologa yaqaano way. sidaa darteed maadaama uu ciidanka maanta meel kasta ku feesteen hayo oo hambalyadaas meel kasta uu maanta maalin weyn ay u tahay ciidankeena taariikhda markii la fiiriyo waa ciidan geesiyiin ah wadaniyiin ah aqoon tababareed oo fiicanna horay u lahaan jiray haddana maanta aan ku faani karno xilliga aan joogno oo ciidanka uu degan yahay. waxaan isku wadnaa dabaaldeg iyo operation inaan fulino waa arrin lagu faani karo wey. waxaan rabnaa maadaama sanadka hore aan Kismaayo ku dhignay maantana halkan aan ku dhigno sanadka dambe waxaan rajaynaynaa inaan midal Jubba meel ka mid ah aan feestadan ku dhigno oo aan horay u socono hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aimkiisa waxa weeye inuu la dagaalamo cadawga Soomaaliyeed ee al-shabaab inuu la dagaalamo oo dalkiisa uu xoreeyo oo dadkiisa uu xoreeyo oo diintiisa uu xoreeyo. waajibaadka anaga sidaa weey annagoo fulinayna amarka madaxda taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida taliyaha qaybta taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha ku-xigeenka xoogga iyo taliyaha xoogga maadaama meel kasta ciidankan uu maanta feestada lagu sameeyay waxa weey qayb baan ka nahay. waxaan salaan u dirahayaa dhammaan saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed ee joogaan sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo alifleyda yaan dhammaan salaan u dirahayaa. waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay barwaaqo iyo basbash han ugu gaarsiiyo iyo annagoo insha Allah isku furno gobolada dhammaan Soomaaliya. Khadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.